السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaa saaxiibada qiimaha qadarta mudan ku xiran janaalkan walaalaha family oo markale muuqaal hor leh muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa gooskoska labaad ee xalqada 62 kaas oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan daawad hadii ay tahay markii waad soo booqatay janaalkan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like noo saar waa maasinta ka bacdiya soo dhawow gooskoska ayaa ah runtii mid aad iyo aad u xiiso badan kadib markii su'aalo badan oo ku wareersaneen uu naga jaahiltay hadaba hangudo galo gooskoska ugu horeyntii waxa uu ku bilaabanayaa qoftii shinguul ahayd oo hadlaysa iyadoo dhaxaysa shaqo cusub ayaan haystaa ama ala kulli xaal shinguul shaqo cusub ayaa heshay shaqadaas oo ah inay baska wax ku dhex iibiso ma sheegi kari shaqada faahfaahin inta ka badan yacni shaqada kulli bas ay wax ku dhex iibinaysaa inay bariis ku dhex iibinayso inay khudaar ku dhex iibinayso ma sheegi kari laakiinse runta waxay tahay inay shaqo cusub heshay isla markaana muuqaalka xiga waxa hadlaya yarkii Cumar lagu magacaabay isla markaana wuxuu dhahayaa ee damaana ogeyn fikrad noocan inay kugu jirto wuxuuna la hadlayay shinguul ayuu la hadlayay iyo ahayd wuxuuna ka wadaa fikrad noocan inay kugu jirto marnaba maana ogeyn halka muuqaalka xigana ay shinguulka laftirkeeda hadlayso qof ay la hadlaysana ilaa iyo hadda lama sheegi karo laakiinse qof ayaa kamera lagu qabanaya waana wadaadii safety ahayd shinguul waxay dhahaysaa adiga si fiican aad u garanaysaa Soomaha adeegista shaqadan ama shaqadan sida looga shaqeeyo aad ayaad u garanaysaa Soomaha waa shaqada cusub ee shinguul heshay isla markiiba kamerada waxaan lagu jeediyay ayay wadaadii safety ahayd halka muuqaalka xigana aan arkayno gabadha Yasmin lagu magacaabayay oo dhahaysa walaal markaa kadibna waxaan arkaynaa Sarbi oo kursi ku dhibaataysan in uu ka soo baxo kamana soo bixi karo isla markaana Yasmin ayuu caawimaad weydiisanayay wuxuuna dhahayaa Yasmin halkan iga soo saar dadku dhan way u jeedeen dooruukii inta kale way u jeedeen waxayna la tahay inay ku qosli doonaan halka muuqaalka xigan aan arkayna ee gooskoska dhexdiisa ah asiyo la hadlayso dooruuk waxayna ku dhahaysaa ma waxaa jira wax aad sameyn talow ay dhahaysaa waxaas wuxuu yahay ilaa hadda lama sheegi karo kuleyse waa hadal iska easy aan filayaa muuqaalka xigan waxa arkayna oo muuqaal aad iyo aad aan runtii ugu wareeray dibna aan u dabagalay muuqaalkaasina wuxuu yahay Sarbi oo garaacaya Cumar hadaba Sarbi talow Cumar muxuu u garaacayaa ama Cumar maxay isku dagaalayaan hadaba Cumar ayaa hadlaya ala kulli xaal wuxuuna dhahayaa aabbahagu ku jecel yahay Soomaha ilaa waxa tahay wiilkiisa Sooma ahan Cumar ayaa saa dhahaya Sarbi ayuu saa ku leeyahay wuxuuna ku dhahayaa aabbahagu ku jecel yahay ilaa wiilkiisa tahay Sooma aha hadaba halka muuqaalka xigana arkayno qoftii ay bike ahayd oo hadlaysa waxayna la hadlaysaa gabadhii Afra ahayd waxayna ku dhahaysaa yaa awood ku siiyay ama sideed ula hadli kartaa hooyadeeda noocan maxaase isu malaysay isla markiina cunugta ayuu ku boodaysaa timaha soo qabsanaysaa wayna la dagaalamaysaa Aasiye iyo Shinguul dhamaan meesha wada joogeen wayna isku daawanayeen kulli sida loo kala qaban doono ma sheegi karin adiga oo ahaan iman doona meesha waa tahay muuqaalka xigan waxa arkaynaa oo runtii aad u leeyahay badan horta waxaan filayaa insha Allah taala inaan sawirka halkan idin soo saar doono halkaas waxa taagan yarkii Sarbi ahaa laba nin oo la garanin way la taagan yihiin kulli Sarbi ayaa hadlaya geesna waxa fadhida ama jiifta gabadha yarida email ahayd Sarbina wuxuu dhahayaa haddii ay dhimato badbaado ma lihin waxaan filayaa labada nin in ay Sarbi hawsha kula jireen oo gaariga la saarayeen Sarbi wuxuu dhahayaa haddii ay dhimato wax badbaado ma jirto marka hal xal oo kaliya ayaa jira waana aamusnaan ama in aan qarino arrinkan runtii horta aad ayaan naga xumahay arrinkan in la qarin doono arrinkan email ama dhimashadeeda ha noqoto ama dhaawac ha noqoto laakiinse waxa la sheegay in arrinkan la qarin doono aan runtii ahaantayda aad ayaan naga xumahay inta ka xumaan doontana waad aragtiin xaaladdu say u dhacayso iyo wax walba si u jiraan hadaba muuqaalka u dambeeya aan arkayno gooskoska dhexdiisa waxa weeye yarkii Cumar ahaa oo cunugta email ay soo qabsanay ku dul barooranaya asagoona leh email sidoo kale waxaan u jeednaa Cumar in dhaawac uu afka kaga yaalo markii Sarbi ayaa ilaan garaaciyay waa tahay bal intaasi haddii aan kaga nimaano gooskoska hadal haynta iyo sidoo kale macluumaadada bal han u gudubno hadaba 60% hadal haynta musalsalka walaalo waxa la leeyahay Sarbi intuusan email jirin koor wuxuu soo garaacay Cumar kadib markuu Cumar soo garaacay kadib ayuu email jirsiyay saas waaye oo Cumar oo markaasna wadada iska socda ayaa waxa uu arkayaa walaashiisa ayuu arkayaa ay ahayd sidaas inuu ugu ooyaya halka 40% hadal hayntuna ay tahay
marka sarbi lagu magacaabo ugu horeyntii email ayuu gaariga tiirsiyey kadib cumar ayaa imaaday cumar ayuuna dilay haddaba arrinkaas ama hadalhayntaas ama macluumaadkaasi badi waxaa laleeyahay waa qalad sababtoo ah cumar haddii uu u imaado sarbi oo dul jooga email islamarkaana gaariga tiirsiyey sarbina cumar ma sii garaaci karo sababtoo ah cumar waa shakhsiyadiisa waan ognahay qof xanaaq badan markuu arko walaashiisa inay dhulka taalo sarbi uma ogolaanaya inay dagaalaan ee cumar waa u qalinaya ama booliska ayuu la hadli ama cumar inta karaankiisa ah waa uu la dagaalami sidii aan arkaynana looma dileen marka ani ahaanteeda waxaa saxsan sarbi ugu horeyntii wuxuu soo dilay cumar markuu soo dilay kadibna ama uu soo garaacay asagoo baxsad ah ayuu jiirsiiyey gabadhii email ahayd kadibna wuxuu dhahay arrinkan xal kale male lacala haddii ay dhimato xal oo keliya ayaa jira waa inaan aamusananaa kadibna ay sidaas ku carareen islamarkaana cumar ka daba yimid walaashiisana uu ku dul ooyey waa tahay gaadhiga ma laga yaabaa in la hela ama gaadhiga in uu sarbi ka xarar ma laga yaabaa waa midda runtii aadka iyo aadka ilaa waqti xaadirka la isku weydiinayo midaas ayaan insha allahu tacaala rajaynaa inay caddayn noqoto haddaba sarbina madila ayuu noqonaya oo gabadhaasi yar ma asaga ayaa sabab u noqonaya in ay dhimato waa macquul horta fanisku ama taageerayaashu dhowr ay u qaybsamaan la socda fanis ka daba taga wax waliba oo naga horeeya waana faniska turkiga ee musalsalka walaalaha ama yacni turkida taageerta musalsalka walaalaha horta faniska turkida dhanka musalsalka walaalaha taageerta ama turkida taageerta musalsalka walaalaha waxay leeyihiin say u badinayaan ayagaba email way dhimanaysaa ayay leeyihiin dadka qaari fanisyada kale daafaca caalamka joogana waxay leeyihiin email ma dhimanayso sidaan dhibka yar kuma dhimanayso iyo sida ay kaatibadu sheegtayba inkastoo dee daarigtarada aan lagu kalsoonaan karin wixii niyadeeda kusoo dhacay samayn karto mararka qaar been saxaafadda ay u sheegi karto haddana email dhimashadeeda wax sheegi kara ma jiro laakiin 70% waxaa laleeyahay way dhimanaysaa xalqad soo socota caddayn nooma noqon karto email dhimashadeeda kolley waan iska garaynaa musalsalka walaala waxyaalaha ka suurtooda intaa waxay noqon doontaa xalqadda dhammaadkeeda ayay noqon doontaa oo labadii goosgoos baa lagu soo daray mawduuc ay ahayd marka waa iska caddaa intaa waxay noqon doontaa xalqadda dhammaadkeeda ee xalqadda soo socota ta kasii dambeysa balhan aragna email xaaladeeda dee haddana haddii ay email dhimaato runtii waa murugo kale horey waxaan ugu dulqaadanay wadaadii khadiije ahayd weli ayaa lagu xigsiiyey qadiir ayaa lagu xigsiiyey haddana sheekada haddii email timaado dhibaatadeeda leedahay inkastoo hadda ka hor meelaha 9 bilood ka hor ay dhaheen email way dhimanaysaa ay nagala bixi waayeen hadda iyo qadiyadii dib usoo loo furan ayaan filayaa waa tahay muuqaalkan kulli waxaan ugu talagalay goosgooska oo keliya macluumaad iyo sharxis kale uguma talagalayn wasoco muuqaalada xiga wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu